السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلامتين دمانتين ميلاد شوكتام الصومالي maanta waxaynu ka hadlaynaa cilaaj ku saabsan sunna nabawiya oo aynu u naqaano toobinka. Waxaanu ka hadlaynaa maanta sababta laysu toobo iyo xilliyada lays toobo iyo meelaha layska toobo. Okay, intaynaan halkaa gelin waxaan doonaynaa inaynu ka hadalno xoogaa daraasada lagu sameeyey bisha carabiga ah soddonkeeda cisho waxaa loo qaybiyay laba qaybood. qaybii waa qaybta hore oo waa 14 cisho bishu intay 15 noqonayso. markaa waxaa la ogaaday inay dhiigga bani aadamku uu kacsan yahay bisha inta ugu horeysa, weliba uu halka ugu sareyso oo uu tago meesha uu kacsan yahay dhiiggu qofku neerfas noqdo 13 iyo 14 iyo 15 bisha. waana mamnuuc 13 cisho saddexda cisho in la istoobo. 15 cisho wixii ka dambeeya dhiiggu wuu degaa, qofka dhiiggiisu wuu degaa, wuxuu noqdaa nabiga calayshi salaatu wasalaam wuxuu nagu tilmaamay 17 iyo 19 iyo 21 in la istoobo. markii la baaray cilmiga hadda sida ay noo sheegeen aanu ka akhrinay, waxaa la yidhi dhiigga xun wuxuu fadhiistaa dhulka toobinka nabiga calayshi salaatu wasalaam uu inoogu tilmaamay 3 meelooda ee loo yaqaano al-akhdacayn oo luqunta xaggeeda dambe ah, dhinaca tunka xigta, iyo halka la yiraahdo al-kaahil oo aan caawa ka hadlayno. waa xubinta toddobaad ee luqunta iyo halka iska galaan araxdu. araxda inteeda kale markaa 33 araxda marka toddobada laga saaro waxa weeye 26 oo dhabarka ah oo saableyda ku saabsan oo laga toobo wixii caloosha gala iyo magaranaysa dhibaatada magaranaysa wixii hoose. waxaa ka hooseeya meesha la cuscuska loo yaqaano oo ugu dambeysa oo iyada laga toobo waxa loo yaqaano cirqi nasa. marka waxaan usoo laabanaynaa halkii aynu doonayna inuu ka hadallo oo ahayd al-kaahil. waana lafta toddobaad, xubinta toddobaad ee luqunta halkay ku dhamaatay iska galaan laf dhabarta iyo luqunta halkay iska galaan weeye. si 3 gees ayaa loo fadhiya, 3 gees fadhiya ayaa loo toobaa. marka xilliyadaasaan la toobaa. waxaa la yidhi sababta xilliyada loo toobo dhiigga marna waa kacsan yahay marna waa degan yahay. wax allaale wixii liquid ah ama dareera ah adduunka wuxuu ku xidhan yahay dayaxa iyo godadkiisa. sidaa darteed baddu marna way caaridaa marna way soo kartaa. marka xilliga uu dhiiggu kacsan yahay 15 cisho ugu horeeya bisha carabiga ah laysma toobo. waxaa la tooba markaa uu dego. waxaa dega markaa waxa wasakhda ah iyo wixii la socda iyo dhiigga burburay iyo dhiigga baaliga ah iyo dhiigga duugga ah iyo dhiigga gaboobay cas ee burburay ee jirku uu isticmaalay ee uu awood u waayay si uu dabadda ugu saari lahaa, jirka ugu saari lahaa, ayuu wuxuu ku kaydiyaa dhulka uu nabiga calayshi salaatu wasalaam inoo tilmaamay 3 meelooda. marka waa la toobaa. halkaasina waxay ka dawan tahay cudurro badan oo ku saabsan caloosha iyo xameytida iyo haddii ilaahay ku roo yahay cudurradan loo yaqaano magaranaysa ay Chinahu yiraahdaan plus and minus, yani magaranaysa electrigan dadka dhiba ayuu daweeyaa. marka xijaamada waxaa ka farcama waxay u farcamtaa 2 qaybood oo laba cudur bay daweysaa. waa cudurrada u baahan in si kulul loo daweeyo oo marka sakiinta lagu dhifto ayuu magaranaysa dareenka qaataa, waxa reactionka loo yaqaano ayuu daweeyaa. marka la soo nuugo dhiigga ee ay meeshu toddobaad ay yare xoogaa yare ay casaato ilaa 7 ilaa 2 toddobaad na waxay dawo ka tahay cudurrada chronic ah ee raaga
sidaa darteed labada qaybood baa way daweysaa xijaamadu. waana nabiga alayhi salaatu wasalaam sunnahiisa suu nabigu inoogu sheegay sanadkii waa inaad hal mar qofka bani aadamku hadduu caafimaad yahay doonayo caafimaadkiisu uu hagaago waa inuu sanadkii hal mar uu isdaweeyaa. waxyaabo badan oo aynan soomaali haddaynu nahay aynaan cilmi weyn aynaan usii lahayn baa jira, waayo shareecaddeena islaamka waxyaabo badan oo ku saabsan cilaajka ayaa ka mid a. waxaa ka mid a haddii aynu eegno masalan sida loo yaqaano weesada ama wuduu'a. marka lugta ama lugaha la maydhayo ama gacmaha la maydhayo ama wejiga la maydhayo, maydhista la doonaya waa maydhista buuxda ee gacantaadu ay gaadhayso. waxaa hoos imanaya nooc min duugis oo waxaan loo yidhaahdo reactionka, waayo cagaha qofka wuxuu leeyahay maraakas badan oo acsaabta ku shaqa leh oo laga cilaajo, sida waxaan aynu naqaano ibarsiniya oo iyadu ka farcantay waxyaabaha ku salaysan xijaamada. waayo cagaha marka la duugo ee aad weesaysanaysid, adigu waad weesaysanaysaa laakiin 3 jeer markaad maydhid maaha inaad qasabada cagta hoos dhigtid oo aad tahdid waan weysaystay. waa maydhistuna waxa weeye waa in la duugaa oo la qabtaa oo la maydhaa 3 jeer. 3 jeer oo lugaha ah, 3 jeer oo lugaha ah, 3 jeer oo gacmaha ah, 3 jeer oo wejiga. waxaasoo dhammi waxay samaysaa wax loo yaqaano reaction, waana dawo. iyadoo haddana caqiidadeena ka ah daahirnimo, sida haddartoo laleeyahay hala maydho cudurkan hadda koronaha ee faafay la yidhaahdo nadaafadda. diinteenu iyadoo aan corona jirin buuba ilaahayna iyo nabigiisa alayhi salaatu wasalaam inagu amray nadaafadda. cagta marka aad maydhaysid, xataa weesada markaad weesaysanaysid, cagta boggeeda hoose waxyaabo badan, meel kasta oo caloosha iyo wadnaha iyo madaxa iyo sanka iyo beerka iyo xameytida iyo caloosha iyo qabsinida iyo qayb kasta oo xubnaha jidhka ka mid ah, markas bay ku leedahay ay ka kantaroolo marka aad duugaysid ama aad maydhaysid, ay maqnaansa ku samayso dib u kicin iyo baraarujin ay ku samayso. halka ay faraha guudkoodu cagta marka aad marinaysid gacanta ee aad maydhaysid ay ku samayso magaranaysaa manaacadda jidhka iyo difaaca jidhka ay kiciso. halka rukuuca oo kale uu daaweeyo waxaan loo yaqaano diskiga ama xubnaha dhabarka ee dadka kala baxa. haddii sida saxa ah loo rukuucayo sida ay diinteenu ina farayso, sida rukuuca saxa ah, waxaan akhrinay niman hinduusa oo ka yidhi waxaan la yaabanahay muslimka marka uu yidhaahdo dhabarka ay xanuunaya, iyaga oo shareecadeedu ay ku jirto markay tukanayaan waxaan ay u yaqaanaan rukuuca qofka saxda u rukuuca 5 waqti inuu dhabarka ka dacwoodaa waa habeen xalay tegay. marka sidaa darteed waxaa fiican inaynu waxaan aynu macnaha la fahmo, cilmiyan loo fahmo oo aynu ogaano weesadu iyadoo cibaado ah ay haddana cilaaj tahay, oo ay cilaaj weliba tahay cilaaj nafsaani ah iyo cilaaj jasadi ah ay tahay weesadu, oo ay xijaamadu tahay cilaaj nafsi iyo ay tahay iyo haddii ay tahay cibaado. markaynu adeecno nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo wuxuu inagula dardaarmay oo sunnaheena ay sunno tahay. marka sidaas darteed waxaan jeclaaday inaan idinla wadaago macluumaadka qayimka ah inaad isgaadhsiisaan oo aynu ka faa'iidno waxyaabaha diinteena ilaahay uu ku manaystay ee cilmiga wanaagsan ee manaafacaad kale, inaynu ka faa'iidno oo aynu ogaano xilliyada aynu istoobno, xilliyada aan istoobin, iyo sababta aan laysu toobayo iyo sababta aan laysu toobayn iyo meelaha laysku toobayo. weesada markaynu weesanaysanayno ee aynu salaada u diyaar garoobayno inaynu samaynayno 2 nooc oo cibaadadii ah iyo cilaajkii. marka aynu sujuudayno wax allaale wixii electric silent electric waxa loo yaqaano kahrabada taagan, marka aad qofku fooda dhigo ee uu sujuudo ee u jeesto dhinaca kacbada ama xaramka u jeesto, inay jidhkiisa ka baxdo wax allaale wixii electric ay ka baxdo jidhkiisa kahrabadii ay ka baxdo silent-ka ah, oo uu qofku marka uu sujuudo ee uu fooda dhulka ku hayo uu miisaankiisu tago 0.
macluumaadkaasoo kale waxaa fiican inaynu fahamno waa mowdaca keliya ama wadciyada keliya ee bani aadamka wasankiisu uu yahay zero waa marka uu sujuuda uu sujuudayo uu qofku waa bilaa miisaan waa cilmiyada ilaahay marka walaalayaal waxaan doonaynaa inaynu ka faa'iidno haddii alla yidhi xalqado kalena oo insha allah aynu ka wada hadli doono waxyaabaha cilaajiga ah ee nabawiga ah ama dhirta ha ahaado ama caqiidadaba ha ahaadee ka wada hadlaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.